محمد حاشي فارح waxaa dilay cabdi maxamed amiin oo taraafikada ka tirsan waxay intaas taraafikadu isku difaaceeda ay ku sii adkeynay leedahay nimanka khawaarijta ee shabaabka ayaa beejkooda ku soo daabacay inay gaari ciidanka booliisku leeyahay ay weerareen qofna dhibaato ku gaarsiiyeen waxay leeyihiin qofka ay sheegayaan in dhibaato gaarsiiyeen waa qofkaas muwaadinka oo wiilka yar ah tobankii bishan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa u fadhiisatay dhageysiga dacwad loo haysto 8 eedeysane oo uu qayb ka ahaa cabdinaasir cismaan nuuno kaas oo lagu soo eedeeyay dilka marxuum maxamed xaashi faarax laguna xukumay dil toogasho 17 isla bishan hase yeeshee waxaa ka dhashay xukunka maxkamadda ee eeda cabdinaasir cismaan hadalhayn badan iyo ehelada marxuumka oo ku doodaya in eedeysanaha uusan ahayn kii saxda ahaa ee uu sababsaday wiilkooda waxa ay ku doodayaan ehelada marxuum maxamed xaashi faarax in la sii daayay gacan ku dhiiglihii dilka u geystay isla markaana xukunka uu yahay mid ka fog sharciga isla markaana ay u baahan yihiin cadaalad sax ah maxamed xaashi faarax waxaa dilay cabdi maxamed amiin oo taraafikada ka tirsan oo asaga kaliya oo qora ka sitay ayna la socdeen cabdirasaaq cadow axmed iyo nuuraddiin cali gabayre oo taraafikada ka tirsan maxamed xaashi faarax ninka lagu eedeeyay madilin waxa dilay askariga taraafikada ah macluumaadkiisu buuxdaan haynaa waa noo xiraa markii noogu dambeysay waa nala macaamileen beeshiisu waxbaan isku ogeyn wax ka jira male cadaaladda ha loo soo noqdo gaashaan la sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay kiiskan oo ay dad badan ku jahwareersan yihiin sax ahaashihiisa iyo sidoo kale u cadaalad falidiisa waxa uu sharaxayaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida sababta keentay in la xiro askari taraafika ah kaas oo markii dambe xeer ilaalinta ay sii daysay ahana tuhunsanihii ay qabeen ehelada in uu dilay wiilkooda xabadihii intay dhiceen qof kasta madaxii dhulka dhigatay markay soo kacdane taraafikada le meesha taaganay saas darteed xabadihii dhacay anaga qof kale ridaya ma arkin taraafikada dishay nimanka qof dil haddana ma naqaana laakiin gaarigaas taraafikada ah ciidanka saarnaya dileen okay yaa la yidhi xeeraaliyuhu wuxuu u yeedhay 3 qofood ee taraafikada ahaa 3dooda caddeena ka qoray waxay kulligood leeyihiin war annaga waana la weeraray annagoo taagan meel oo mootada la jiidayay hagaajinayna ayaana la weeraro xabada nagula furay wuxuu kaloo xeeraaliyuhu wax ka qoray labada darawal oo shacabka ahaayo mootooyinka isku dhac lahaa waxay leeyihiin annaga oo mootadii la jiidaya gaariga istaagay mootadii inta bareeg ku dhagay laga fujinayo xabada xoog lana qabsadeen oo laba jiha ka nooga yimid xabadahaasi oo labada dhinac nooga soo dhacay ma garanayno qof nagu shubtay madaxan dhulka wada dhigan qof anaga naga mid dhibaato ma gaarin marka laga reebo mooto bajaajti oo dhib yar uu gaaray oo dhib gaaray oo xabadihii ay gaareen sidaas uu soo tagnay leeyihiin waxay intaas taraafikadu isku difaaceeda ay ku sii adkeynay leedahay nimanka khawaarijta ee shabaabka ayaa beejkooda ku soo daabacay inay gaari ciidanka booliisku leeyahay ay weerareen qofna dhibaato ku gaarsiiyeen waxay leeyihiin qofka ay sheegayaan in dhibaato gaarsiiyeen waa qofkaas muwaadinka oo wiilka yar ah saasay ku doodayaan taraafikada intaas markay arrintu maraysa markay xeeraaliyuhu wuxuu sameeyey 2 qofood oo maxaa la yiraahdaa oo aanan hubaysnayn oo shilcabirihii iyo darawalkii uu sii daayay qofkii hubaysnaay oo traafik ahaayuu xiray oo sii hayay muddo sii hayay xeeraali arrintii kiiskii halkaas taagan yahay oo dhinac u bixi la oo arrintu ay taagan tahay ilaahu ma hadashido ay taagan tahay ayaa waxaa yimid sargaal nabad sugidda ka socda dambi baara ah oo codsi wato oo ah in ciidanka taraafikada ah in lagu xiro rabo shabaab ciidanka taraafikada weeraray aan haynaa waxaan rabnaa in ciidanka taraafikada anaga xiriirkeen lagu xiro xeeraaliyuhuna oo nagala shaqeeyo arrintaas xeeraalihii lagu diray 10 qof sheeko markuu ka soo sheekeynay sheekadii 9aad wuxuu ku sheegay baabuur taraafik oo jiidayo gaari mooto bajaaj ah oo meel taagan wadadan afgooy ceelasha ka imaato inay asaga iyo nin kale 2 ka wato ay xabad ooda uga qaadeen ay ku fureen kadibna loo sheegay qof kamid ah inuu meesha ku dhintay saasna iyaga loogu sheegay halkaas uu sheegay xeer ilaaliyihii markii waxa isku waafaqay doodii taraafikada iyo galkii ay hay'adda nabad sugidda keentay iyo dadkii loo soo xiray nuxurkiisii ayaa isku waafaqay saas darteed qofkii taraafiga ahaa ee u xirraay wuu sii daayay isagoo eedda kala laabtay oo warqad uu soo qoray uu leeyahay eeddi waa kala laabtay
oo bacdamaa la helay dembiga loo haystay cid kale oo kaga caddi la helay. ka shaqaynta cadaaladda ma ahan wax sahlan, laakiin maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay horey dil toogasho ah ugu xukuntay eedeysanayaal aad u badan, kuwaasoo isugu jiray askar dowladeed iyo sidoo kale mid shabaab ah oo dilal iyo qaraxyo iyo falal kale oo dhibaato ah u geystay shacab iyo dowladba. haddana waxaa jira weli eede ay tabanayaan dhibanayaal leh cadaaladdu ha shaqayso. cabdinaasir socdaal, Bilan Radio.